السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa CKC waxaan jecelahay in aan waraysi gaaban yeelano abwaanka weyn abwaanka Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed aad ugu jecel yahay Xasan Abdullah Saalax oo ku sugan ariga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Hargeysa. Xasan marka hore ku soo dhawo CKC oo magaalada Toban dalka ka soo baxda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن انت انا بلعب واحد جالها نوان حنون هيا كويمد وربعينتك عرقنا وترك جاية الغوق على بورتم حالة العاصمة سيطاي حالة العاصمة هو سيدي هو نفسن الحمد لله حنون الان الشيء ده اللي بيسميه لكن هذا الحمد لله والله الناضي وانبخسري الحمد لله والصراحة حسن بلدتك عن رنتي عن آتك وحسن مقالي ميديك هذا وضي هدي عين برنو حسن لقل الصراحة وعيو يا فريق سبع سنوات مدة كل سنة جوه أيها كل شيء من الجيب اللي هيك استا يروح كمان كيلومتر ولا هيك waxaa ku soo barbaaray magaalada Buurada صح iyo magaalada Kigali صح waxbarashada iyo quraanka iyo dugsiga hoose dhexe waxaan ku kala qaatay magaalada Kigali iyo Buurada صح dugsigii sarena waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa hadda deganahay صح muddo 7 sano ku siman waxaan ku noolaa dalka Soomaaliya halkaasi markii dhammaan midday Nairobi صح kana waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa markaad eegto runtii maanta awaan aad loo jecel yahay baad gaar ahaan ariga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ku hadlaaba waxaana tahay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska oo runtii lagu tilmaami karo ayaad kooxdan aad soo saartay fankii Soomaaliyeed oo soo nooleysay goorma ugu horeysay ee aad gabay oriso ambaar hees abuurto لما يكون يلفلي صح مركب هيس بهاي مسجل بهاي واحد هيس وقاعدة هناك الأمر سمسامر صح طبعا مدة بدل هاي كده مساعد هاي لما يكون واحد شابه هاي بس لما يكون يكوي تمك مركب لما يكون يكوي تمك أي مسابقة marka wax dareenay ku xambaarsan heestaas adiga oo si goori ee sax oo adiga dareenka kullu qofkana dareen xambaarsanaato ama maxaa yeelay malaawada xambaarsanaato wax sameeyo wax sameeyo inta badan oo dareen ahaan ama xaalad ahaan wax badan ku xeeran صح marka kasoo marka laga yimaado heestaasi umursal muusa ama kullu heesta magaciga bxalaa waxa la waqti marka umursal muusa heesta waqti qaaday 2012 adiga soo joogana waa 2016 maxaa ku xigay marka magaalada hees aad abuurto kasto waqtiga كابتن أنا كوحان وشاعري دستوريو مامور سنة مدحان حديقانا مركاسان فاهم اللي بحنا
صح horta way adag tahay in koox runtii isku timaada oo maamul iyo kala dambe runtii loo abuura adigana runtii waxaad maanta abuurtay koox isku dhamaystiran oo maamulkeedii iyo kala dambeynteedii leh muddo intee lag bay kugu qaadatay inaad kooxdan aad dhamaystirto maamulkeeda iyo kala dambeynteeda haddii marka aad koobiya waxoogaa saliidda ku shubto waxaadina saliiddaasi dul socoto in la falgeliyo صح dadkuna hadday meel wada joogaan ay dhaqan ahaan iyo aragti ahaan iyo fan ahaan intaba ka siman yihiin صح waa sahal صح inaanay sida biyaha iyo saliiddaasi isku noqon ay isdhexgalaan isku galaan صح marka higada gaarka ee mid waliba xaggiisa uu ka sitay hadday tahay abwaan hadday tahay musician hadday tahay fanaan ee kulmasay ayuunbaa midaysay صح marka inkastoo adagtahay in koox aan dhaqaale meel kale ku tiirsanayn aan dowladeed ku tiirsanayn aan hayad ku tiirsanayn inay noqoto wax awoodeedu cid kasta dareenta oo soomaalidu way adag tahay laakiin way noo suuro gashay ilaahayna taa mahadle waxaanan mahad uga haynaa shacabka soomaaliya meel kastoo dunida dacladooda ay ka joogaan oo dhagahooda na amaaneeyey ama waa sax marka xasan kasokow markaad kooxda xidigahan ka nimaadno adiga ahaan intaanad abwaanka noqon eenad hal abuurkan aad isku daynad haaseeyo gabayada abuurto gabayadii hore aad dhegeysan jirtay waqtiyada aanad hal abuurka noqon maxaa kamid a horta waxaan jeclaa ninka laga maxamed gaban warsan adraawi oo kale صح maxamed cali iyo kale maalintii aan suugaantooda aan dhegeysan jiray inshallah way jiraan fanaaniin oo axmed nabtay oo aan dhegeysan jiray haa صح marka xasan runtii waxaad tahay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska miya ah gudoomiye ku-xigeenka amba xoogayaha kooxda xidigaha geeska inta kooxdu waxay u dhisan tahay geeska runtii dad badan ayaa maanta heesiyadana dhegeysta oo aad baa loo jeclaystaa marka sanadadan dambe imika aynu ku wejino marka labadii kun iyo lix iyo tobanka wax heeso cusub yaa soo saarteen gaar ahaan adigu inaad culusay horta intaan su-aasha kaaga jawaabo waxaan doonayaa hawlahooda kuma jiro inaan markaan waqtigii aan aasaasnay waxaan laga yaabaa inaan wado 2003 marka halkaasaan qaxeeyaa 2013 asaasteen kooxda xidigaha geeska haa waa hagaag su-aasha kala weydiisana way jiraan gurfasa cusub aan soo saaray sanadkan 2013 erayadii musliimiin waxaa kamid ah heestan maxaa caqaabo oo cusub oo laga cibaaro ka hadlaysa xaaladaha nolosha iyo waayaha waxay iskuminaysaa in qofku marna waqtigu ka xumaan karo marna noloshu wanaagsan karto in iska saaxidi karo hayada dabitaano ay tahay mid labada qof xitaa wada dhashay isku si u saacida eryadeeda waxaa kamid ah waxaa tilmaha ay diji dhalo laakiin waxaa suumeeyaa ninkana idino ruuxii caynimo shay markuu caawadamad noqdacaano habeen inaan shuucayn haddaad dambi iyo xaruun beli tahay aad iyo xidiguga reer iskadeen adoo caawaqabaa haddaad cawanayso ayaa waxaa jira nolosha ku xadidan
عكرما ريري دالو نسيم من حسومي با متكالي عيلي روحي عدني مش ليعوها مربوح ودنا وإن نغضى على الله مربوح ودنا نغضى على الله عادي دلت أبها نرشوا حي عادي دلت أبها نرشوا حي وياهو عكرما يريري دالو نسيم حسومي با متكالي روحي عيني مش ليعوها مربوح ودنا نغضى على الله مربوح ودنا نغضى على الله العادي دلت أبها نرشوا حي العادي دلت أبها نرشوا حي وأنتي وحلو إسلامي كراوة مدرنتي أتكلم بدك صوت كريسي مركز أبوان حسنو إكتو heesahaga aad samaysay kooxda adiga samaysay ma jirtaa hees adiga si gaar ku taabanaysa anigu jirtaa hees si gaar taabanaysa ayada heestan qalbiga safayaa ku suga waxdiisa kuyaa ku tagaa halkan kugu sheegay in waxaan ku sabaa xasuus adiga maqan oo labastalkaana diga waxdiga inuu ugu go'aan ku diga gelin waxaan waxaan ka qaado oo saaniga dareenka jira waxaa hore ka mid ah wadaadaan weliba noqoshada ku filannahay halkii ku darsadada kalmada dareemo inta badan heesaha dareen ahaan taabtaa nooca kuwa ku sheekeeya jacayl wada joogaya dad kale macada ka sheekeeya aniga xaaskii waalaha ka raadin labada digita ingiriiska iyo xadeed axmed salaaxiye kuwaas waa quseeya waxaa jirta abwaan xasan maanso aad urisay oo runtii duca ah oo aad dhawaan soo saartay maansada ujeedadeedu maxay ahayd magaalada halkiisa xaafada jijiyada meelaa mid garanaya guriga xidigaha duuska gudan yihiin anaga fadhida ay xilli dambe tahay inta badanna marka eebo lagu dadkaiyo koobiyo tobanka iyo meelahaas marba fanaaniintu kamaniyo qatuntahay صح marka anagoo isku daylan asabadaha markaan dibadda waxaan soo noqday oon hor kusoo fadhiistay aan fadhiyey kadibna hore waxaa ka fikiray inay tahay bishii cibaadada in aan ilaahay weydiisto in khaatimada ama toobadda nawaafajiyo صح kadibna naashada xamdinada sidii waxay taas ka hadlaysaa marka hore naftayda la hadlaya ilaah waxay jiranaa xumaan ummadda mid ku jira waalidkii aabada labadaba ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa dalka in eegiyo waxay ka hadlaysaa muqdisho ama xamar iyo dhibaatadan ilaahay ka dulqaado waxay ka hadlaysaa islaamkii in xoogaa iyo sharafteeda ilaahay soo celiyo shidoonka xoogaasa ka hadlaysaa naashada waxaa leedaha xamdina rabowhay dilin xidhiidhka xuskaaga anuu ka gaabshay rabowhay dilin xaggaaga anuun xurmo badan ku yeelan rabowhay dilin xasuusta inaan ahay ruux u xidhan xarbiga geeridiyo mawdka xaqiiqda anuu ilduufsan rabowhay dilin xogteeda xigmadda uunkiyo abuurta anuun xaalayn salkeeda rabowhay dilin xumaanba dunuub xili aan ku jeedo xaq weeye dhimashadayda anuu xarigaaga haysta tasbiixdana xoojinaaya anuu xamdi kuu naqaaya sujuuddana kugu xusaaya xaggaaga rabbow u jeeda igeelkiyo xabaasha rabbow inta lagu xiskuuro
ربو انت لغو حمادو ربو انت لغو حياشو ربو انت لغو حجوبو ربو انت لغو حشودو ربو انت لغو حسيستو ربو انت حاسب ياشو ربو انت حولتك النهارتا ربو انت لغو حريسا ربو كحوري النفتيدا ربو يغو حوري بليسكا ربو يغو حير وناقا ربو حقا يغو هنوني ربو كحلابتا انت ربو بليغ حجابو ربو حسشا قلوبتو ربو حفظا قرانكا ربو انت حور العينتا جنة ميل كل حذريسا ربو انت ميل حبيبكا ربو حرمها فردوسا ربو انت كل حروتا ربو يغيي الحسابتا ربو حكتدي نفتيدا علوشي حدون تأوركا حنشيركا مدي سارتي يبتيدا مدان كحومي مدان حور كيذا نوغي مدي دمريغو حنبارتي مدان حنكي قشيدا مدان كحسيري لبتيدا أنوحو سو ضعيفة أنوحو قيقو ليتو حلكيغا مدي كفيسي نفتيدا مدي حقيدا حسيا وسميسي تاشكا ربوه يبح انترس ربوه يبح البال ربو حل قرى إفكاني ربو حلل داحك باتشي عبيه دنتي حملي أقونتي حوله هذا عبيه إيقدي حمانتا عبيه حسني لبحي حواش ربو النوري حسابت ربو قيامي انتي نار لغو حريو انتي جنة لغو حريو ربو حدونتي فردوسة ربو حرونتي كيال انتي حمها يكفوغن حقذك الله يبهيسا في آخر حقيقة حربان عفي نفتوذا حرمان هري توسن ربو انت مال حرميسا ربو انت فان حيدا ربو انت دوني حيقسن ربو انت حوك دونتا حقي الروح قلين تيسا إيمانك ربو حوشي ربو دتكن كلا حجوبي إذا انت كلا حميسي بحيوذ ربو حوارا حقي يكد الضبع وناقا انتو دميها حسكوذو مانكي كحولا قراتك ربوك دلقاد حنونك ربو قف عيران ببتيسا ربو حرحلن أوذو ربو كحن من هالكيسا حالكيس ربو هغاتشي سبو الحق لله بنقاتشو ديغلا ربو كحير حين دابك دلكيغا هويو هالكي حدون تريدو تالو حكتي بلشدية دادكيغا ربو حديدية سوكية حريرك انتان ولابنو ربو حفظو إلالي دلكا حر نغذي هغاقي دادكا حمدية براري اسكودو مدى وحيدا بريال مدى وحيقصن ربو حسلون وارتا ليبان حكسي ددالك ولو حمر يدد كيدا marka aan xasan runtii dad badan ayaa fankaaga aad ugu xiran gaar ahaan kooxda xidigaha geeska oo runtii aad dhageysta heesahooga oo mar walba runtii jecel soo baxaya bulsho Soomaaliyeed oo fara badan oo hadda ku sugan qurbaha iyo gudahaba ayaa si toos ah ku dhageysanaysa bal ka faa'iideysan chance kan maxaad oran lahayd dadka ku dhageysanaya hadda waxaan lahaa dadka soo dhageysanaya هذا فرت لنا كنتي وانا سلام يا فرنت عندنا واحد من حديها جيس وحويا نانين الكوكوات مدلوا هدي سكع اساسنا عبورني اسلامت انا كتشيرا حتى انا اتكستا افك الصومالي وكو هذا الشا انا امد الصوماليات اللي صح ترى أنا بتشكلنا الشعب كوهينا نسوي سعي وقيمة أيام لنا نقدرنا حاجة أنت بدل بتكون السياسة بهان سكون خلبرا وحياة وفر بدلنا أي كتشاوريين شعب كعربتي سياسة أنا أفكار نهرون هاي بدل كان نهرون هاي الجماعة نهرون هاي بتكون سوالي من أي جوان نمقل ستيان الناس منهم إنك بورا نتشوغا إنك هارجيسي تشوغا إنك حمر تشوغا يسكسي أي تهجرين هو حينا صح فرنتي لحديها بيسك كسر سنواتها إذا كان نوع سلامية هو صح
waxaa guddoonay kala dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbiyada dowladda ku sugan hadda si toos ah ku dhageysanaya runtii ka guddoomay salaantaas aad iyo aad baan xasan kaaga mahad celinaysaa ee aad nagu ajiibtay xiriirka aan ku soo yeelanay waa maasantahay walaal adiga mudan xasan dhageystayaashaas waxa uu ahaa abwaanka weyn ee Soomaaliyeed abwaanka guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Duxul Saalax oo aan wareysi qaadayso magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliland marka abaan xasan runtii dad badan ayaa fankaaga aad ugu xiran gaar ahaan kooxda xidigaha geeska oo runtii aad dhageysta heesahooga oo mar walba runtii jecel soo baxaya bulsho Soomaaliyeed oo fara badan oo ka dab ku sugan qurbaha iyo gudahaba ayaa si toos ah ku dhageysanaysa baado ka faa'iideysan chance-ka maxaad oran lahayd dadka ku dhageysanaya hadda waxaan dadka soo dhageysanaya هذا فرت ولا تنتي ولا سلام يا فريق عندنا هو الحدية ديس هو حوالي ملايين الكوكوات مثلا بيسكر على أساسه عبورني إسلامك أنا كتيرة ده حتى أنا اتكستا أفكر سلمان يكون هذا الشيء أنا أمد الصوماليات المعنيين ده ده أنا بتشكلنا الشعب كوهنا سوى سهيبو قيمية عيانة قيمية مقدرنا واحد جواء انت بدان بتكون السياسة دعان اسكو خلدرا وحيانا وفردنا أي كنت عوريدين شعب كعرب تيسيا سويسا أنا أفكار نهرون هاي بدان كان نهرون هاي هدها نهرون هاي بدك السؤالي من أي جواء نمقنا ستيان وناس منهم إنك تبور إنك شوفه إنك هالبسيط شوفه إنك حمر شوفه بس قصي أي تقدرين هو حاجة ده فرنتي الحدية دي كوسا جنوبها هذا كلام فرعوني ده صح واحد waxaa guddoonay kala dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbiyada dowladda ku sugan hadda si toos ah ku dhageysanaya runtii ka guddoomay salaantaas aad iyo aad baan xasan kaaga mahad celinaysaa ee aad nagu ajiibtay xiriirka aan ku soo yeelanay waa maasantahay walaal adiga mudan xasan
dhegeystayaashaas waxa uu ahaa abwaanka weyn ee Soomaaliyeed abwaanka gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Duxulaab Saalax oo aan wareysi qaadayso magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliland